maanta waa 18 May waa maalin ku weyn guud ahaan shacabka Soomaaliland waana maalintii dhidibada loo taagay Soomaaliland ka madax bannaan Soomaaliya oo leh calan u gaar ah ciidan lacag iyo madax bannaani siyaasadeed dhowrkii cisho ee la soo dhaafay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaa si weyn looga dareemayay u diyaar garowga xuska 18 May iyadoo kumanaan ka mid ah shacabka Soomaaliland ay ku dabaaldegayeen fagaarayaasha magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxaan warbixintan ku soo koobaynaa waxa ay uga dhigan tahay Soomaaliland 18 May 30 sano kadib waxa uu qabsoomay Soomaaliland oo ay soo mareen 5 madaxweyne iyo sida ay caalamka ula falgashay iyadoo aan haysan saaxiibo siyaasadeed oo waaweyn in ka badan 30 sano in ay Soomaaliland si mug weyn oo intii hore ka ballaaran ay u xusayso 18 May waxay ka dhigaysaa Soomaaliland dal dadkiisu jecel yihiin calankooda haystana shacab iyo dawlad isku talan waana mid si weyn indhaha caalamka ugu soo jiidaysa Soomaaliland 30 sano kadib Soomaaliland waxay ku taamaysaa dimuqraadiyad iyo in ay madaxdooda shacabku soo doortaan iyadoo ay Soomaaliland ka guurtay doorashooyinkii baarlamaaniga ahaa ee ay xubno kooban dooran jireen madaxweynaha taasi oo ah mid ay dheer tahay Soomaaliya Soomaaliland waxay dhisatay ciidan ka kooban dhammaan qaybaha ciidanka waxayna ciidankaas ku guuleysteen inay si buuxda amni uga dhigaan Soomaaliland oo ah maanta halka ugu amniga iyo dimuqraadiyadda badan jamhuuriyaddii 60kii la isku oran jiray Soomaaliya Soomaaliland waxay ku guuleysatay siyaasadda arrimaha dibadda oo ay sanadihii u dambeeyay si toos ah ula falgashay caalamka madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi tan iyo markii la doortay wuxuu safarro ku kala tagay wadamo badan oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Djibouti, Itoobiya iyo Imaaraadka iyo kuwa kale oo ku yaala Geeska Afrika safarkii ugu dambeeyay ee madaxweyne Biixi ku tagay dhawaan wadanka Mareykanka ayaa Soomaaliland ka dhigay goob istiraatiiji ah oo caalamku si weyn ugu loolamayo waxaana asbuucii dhaweyd yimi Soomaaliland taliyaha guud ee ciidanka Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika kaasi oo sahan ku sameeyay xeebaha Soomaaliland gaar ahaan dekedda Berbera iyo magaalo xeebeedka Saylac waxayna qabaan dadka ka faalooda siyaasadda Geeska Afrika in Mareykanku fahmay ahmiyadda dhuleed ee Soomaaliland sidoo kale Soomaaliland waxay heli kartaa wadamo waaweyn oo aqoonsada marka la eego loolanka Shiinaha Mareykanka iyo Ruushka iyo sida mid walba wakiilo siyaasadeed ugu soo dirsaday Soomaaliland dhammaan fursadahan waxay ku xiran yihiin Soomaaliland oo sanadaha soo socda sida ay u maaraysto iyo sida ay isugu wado wadamada waaweyn ee kala danaha ah sidoo kale Soomaaliland waxay isku diyaarinaysaa inay doorato madaxweynihii lixaad waxaana tartan iyo loolan culus uu ka dhaxeeya saddexda xisbi siyaasadeed ee ka jira Soomaaliland waxaana dhawaan la xaliyay khilaaf siyaasadeed oo ka dhex taagnaa xisbiyada mucaaradka iyo xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye waxayna si fudud uga heshiiyeen khilaafkii ka dhex taagnaa waana mid muujinaysa sida Soomaaliland ay uga jirto xasilooni iyo bisayl siyaasadeed waxaana Soomaaliland uga hartay waqtigii ay dooran lahayd madaxweyne 5 bilood waxayna xisbiyada mucaaradka iyo muxaafidkuba isku diyaarinayaan sidii uu mid walba u kasban lahaa shacabka iyo taageerayaashiisa